وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا markii la yiraahdo war u kaalaya ilaahay wuxuu soo dejiyay iyo rasuulkiisa sunnadiisa wa taala xadiistiisa kaalaya ila aan ku kala baxnay munaafiqiinta ayaa ka jeestay ilaahay munaafiq waa ka sidoo ilaahay ugu xukumay xaqana waxa loo diiday iimaankiiba waxa la yeescuun way sheegata waa ayada waxa lagu bilaabay iimaankooda ilaahay wuxuu ku magacaabay iimaan sax ma aha waa iimaan artificial waa sheegasho waxay sheegteen waa iimaan jaraba ma ahaba bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin amma ba'du waxaan ku soo baxnay labadaynii kulamo hore aayado ku jiraan suurati nuur oo ka sheekeynayay dad yiray ilaahay rasuulkiisa rumaynay waana adeecnay haddana alla uu yiray iimaan ma lihidiin mu'miniintana xaydaankeeda kuma jirtaan dembiga loo haasana ay noqotay waidaa ducuu ila llaahi warasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun ilaahay kitaabkiisa halisku xukumaa looga yeeray markaasay ka jeesteen waxaan halkan ku arki doonaa isla macnahaas aayada sugaya oo weliba si cadcad u sii qeexaya oo suuratu nisaa ku jira aayadda ugu horeysa soo qaadanayna وآية إلهي ويري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا ayadan ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamedow ma la yaabtay qolo sheegatay inay ilaahay wuxuu soo dejiyay rumaysan yihiin oo xataa ambiyadii hore wixii kutubtii lagu soo dejiyay ay rumaysan yihiin ayagoo saa sheegtay haddana isla markii yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut haddana doonaya markii xugum iyo wax kala bax ay u baahdaan daaquut u xugum doonanaya daaquut وقد أمروا أن يكفروا به طاغوت كي إني أمر كلسي أي هاد إني أسرع نمبر كفريان ويتوران باي حكم ودونتين أي أراد سدين وقواسه وحكى لما ده كره ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال شيطان ولد دوني إنه بعدين مفك ودين تكفك وكتوره قالوا شيطان لدوني ومحاله هايستا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول markii la yiraahdo war u kaalaya ilaahay wuxuu soo dejiyay rasuulkii asaga xukumkoodii aan ku kala baxnay ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda kuwa munaafiqiinta markaas ayagoo leexanaya oo madax laabaya oo ka sii jeesanaya ayaad arkaysaa kuwaas waa munaafiqiin ilaahay baa ku xukumay sida aayadda marka sidii ku bilaabatay bal fiiri سفيعاً يسنك هوس بحن الله وحول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وحي الشاكتين إني وحي أدق القصود جن محمد القرآن كي دينتي القصود جي أي رميسيين ولما وحي أن بذي هر الله سود جن أي رميسيين أيوة سا شاكتين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت طاغوت كسيدي سوحالي هذا متكستو حد كتبه wixii ilaahay xuduudii u dejiyay ka talaaba oo xuduudka la gala haddaba maxay tahay taaquudka loo xukumta taaquudka la sheega waxa waaye ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulkiisa salawaatullaahi wasallam xukumkoodii inta yaala mar haddaa inta ka leexato jiha kale aad xugun doonato ha noqoto xeerbeeg odayaal ildaris waxaa la yidhaahda ilgarad waxa rabta ku magacaabo ama قانون يهندا شرعية قاندا وحي سود الجيان وحي دونان هالنقطان مربع حكم كإلهي هذا أنت كله حتى متكر وحكم دون تكاسوا طاغوا متكبري أو إلهي خبائنه إسراسمه وما حي معنى هذا إلهي خلقه ساعة أبورته وحنا قلت لك قري كلبح كتابك كويا الله كتاب كيسا سنة رسولك صلوات الله إنه كلبح يود الجي متكستو كله oo wax kale inta samaystira kaaliya ana idin kala bixina
wixii cadaaladda anaa idin samaynaa xaq soorka anaa idin maaragtay samaynaa wixii qof waliba xaqiisa uu ku heli lahay anaad iga helaysiine aniga iisoo xugun doonto kaa qur-aanka wuxuu u yaqaanaa daaquut ilaahay wuxuu yidhi kaasoo kale waxayba ahayd mu'miniinta wixii la faray waqad umiruu an yakfuruu bih in lagu kufriyo yur la yidhaahdo kaa diidnay cadaalad aad noo haysana male garsoor aad noo haysana male xaq soor aad noo haysa male waxaaba la yidhiba inaad ku kufrisaan baaba daaquutka la faray ilaa aayaddii suuratu baqarana waxay lahayd faman yakfur bidaaquuti wayu'min billah ninka daaquutka inta ku kufriya kabacdina ilaahay rumeeya aayaddii suuratu zumar ku jirtan waxay ahayd waladiina ijtanabuu daaquuta an yacbuduuha waanaabuu ila allah sideedaba daaquut u fiiray xukumkii ilaahay iyo shariicadiisii mid kale oo xaqiina aad ku helaysiin oo maslaxadiina iyo horumarkiina iyo adduunkiina ficiina inaad wax la qaybsataan oo casrigan maaragtay qawaaniinta casriga ahoo laga soo shaqeeyo aqoon-yahanada ay kasoo shaqeeyeenoo heer sara ah oo dadka xuquuqdooda kala sooraysa kaa waa daaquud waaba mid inta kibray ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay maxautii wixiisii la dhinac tamay oo wax ka fiican aan idiin haya yidhi kaa marka qofka muminka waa maxay cilaaqada inay ka dhexaysa la rabo an yakfuruu inuu ku kufriyo yidhaahda mana rabna qaanuunkaada iyo xeerkaada iyo dhaqankaadee kii ilaahay baa igu filan qofka inuu yidhaahdo ayaa la rabaa maxaa yeelay fiiri aayadda ku xigta ilaahay wuxuu yidhi waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allah wa ila arasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduudan markii la yidhaha war u kaalaya ilaahay wuxuu soo dejiyey iyo rasuulkiisii sunnadiisii abataala axaadiistiisii kaalaya iyada aan ku kala baxnay munaafiqiinta ayaa ka jeesta yidhi ilaahay munaafiq waaye kaas siduu ilaahay ugu xukumay xaggana waxaa loo diiday iimaankiiba waxaa la yazcumuun way sheegata waa la yidhi aayadda waxaa lagu bilaabay fiiri iimaankoodii dhan ilaahay wuxuu ku magacaabay iimaan saxa ma ahee waa iimaan artificial ah waa sheegasho waxay sheegteen waa ee iimaan jaraba maba ahaba waa qolo shaydaanka an yudilahum dalaalan baciida weliba waxaa la yidhi fiiri kuwa noocaas oo kale shaydaanka baadinimo fog uu la aaday xataa ma aha baadinimo xoogaa yaroo sharcigii wax laga bayray oo meel dhow ma aha ilaahay wuxuu ku tilmaamay baadinimo fog inay tahay arrintaa haddee waxa sidaas u cadcad sidaa u cadcad ka warrama maanta in iyagoon kala harin wixii caalamiilislaami lagu sheegay ama dowladaha muslimka lagu sheegay ama ummadaha muslimka lagu sheegay wadamada muslimka lagu sheegay hadday ka wada siman yihiin in wax kitaabkii ilaahay ku xukumo uusan jirin rasuulkii salawaat sunnadiisii wax ku xukuma inaysan jirin shariicada islaamka wax ku xukuma inaysan jirin oo qolo kastaba dastuuro iyo qawaaniin iyo xeerar ay samaysatay islaamkiina ay sheeganayso balka warama sheegasho waa taas siduu ilaahay ku sheega waa sheegasho maba ahba iimaan saxa maxaa yeelay aayaddaas hadda suuratu nisaa ku jirta aayaddii ka horeysay maxay ahayd fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad shay isku qabataan ayi shay kastoo aad tiraahdeen warkani maxaan ka yeelnaa saas hala yeela saas hala yeela aaraa ka timaada ilaahay wuxuu yidhi farudduuhu ila allahi warasuuli ilaahay rasuulkiisa uu celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaadba ilaah iyo ilaah iyo aakhara rumaysan tihiin wax kaloo idin furanba ma lahu yidhi aayadda ay leedahay shay kastoo la isku qabsadaba in ilaahay iyo rasuulkiisa loo celiyo hadda ka waran aakharaan rumaysanahay ilaahayna waa rumaysanahay waa leedahay arrin markii la isku qabsanaya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka loo celi mayee shareecadii islaamkee maxaa noo xeer ahaa maxaa noo qawaaniinta noo degsan waddanka qawaaniintiisa maxay sheegaysaa hadee waana ka alla wuxuu isku xiray ilaah baan rumaysanahay aakharaan rumaysanahayba hadday dhabkaa tahay farudduuhu ila llahi wa ila rasuula ilaahay rasuulkiisa u celiya haddayd u celi waysaan hadday aakhara rumaynta sheeganaysiin iyo ilaah rumaynta sheeganaysa waxba kama jiro qur-aanka marka saas u caday arrinta maba aha arrin oo mugdi ku jirtaba maaha aayaddii suurat nisaa hadda suuratu nuur aayadaheydaan ka hadlaynay kulamadaynii hore haddana waxaan dhex joognaa aayadihii suuratu nisaa oo weliba sii socod doono oo intaan hadda aan ku simanaynin oo shuruud adag loo sii dhagi doono qofkii iimaanka sida kale ku xifdisan kara inay tahay inuu ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka salawaatu ullahi sunnadiisii
marka loogu yeero oo yidhaha nacam sidii suuratu nuurba ay lahayd samicnaa waadacnaa waan adecnay waana qaadanay wahaakada sidaa kale aad iimaanku yeelan kartaa aayadahanna waa sii wadi doonaa iyadoo si kasii cadcad ay usii cadday doonaan suuratu nisaa aayadaheeda waan hadda labadan aayadood kusoo qaadanay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu